بسم الله الرحمن الرحيم مدن يا مروين عاو waxaan halkan ka soo gudbinaynaa xubnaha golaha wasiirada ee dawladda Puntland ee wasiir ku xigeenada iyo wasiir dawlayaasha ee caawa u magacaabay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxaan ku bilaabayaa wasiir ku xigeenada waxaa Maryan Cismaan Axmed Fangase loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta waxaa Axmed Maxamed Axmed Qaxiye loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga iyo DDR-ta waxaa Cabdiraxmaan Khaliif Faarax loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda waxaa injineer Cabdullaahi Ismaaciil Maxamed loo magacaabay wasiir ku xigeenka maamulka ee wasaaradda maaliyadda waxaa Axmed Maxamed Bulxan loo magacaabay wasiir ku xigeenka dakhliga ee wasaaradda maaliyadda waxaa injineer Maxamed Xasan Ibraahim loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah waxaa Maxamed Diiriye Gamadiid loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa Dr. Cabdirashiid Xaaji Jaamac loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka waxaa Cabdiqaadir Maxamed Geylan loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta waxaa Faarax Cali Cabdi loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxaa Cabdirashiid Sheekh Cali Dhegasayn loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada waxaa Siciide Xuseen Cali loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska waxaa Yacquub Maxamed Cabdalla loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska waxaa Cabdikariin Maxamed Xasan loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga waxaa Dr. Axmed Cartan Maxamed loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha waxaa Ayuub Cali Axmed loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda deegaanka daaqa iyo isbeddelka cimilada waxaa Maxamuud Maxamed Cali Gabax loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxaa Faarax Jaamac Boos loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaa Siciid Salaad Maxamed loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha waxaa Maxamed Siciid Qolombi loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxaa Faaiise Cali Ismaaciil loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka waxaa Siciid Saalax Seed loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan ku xijinayaa haatanna wasiir dawlayaasha uu caawa magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaa Cabdul Cali Warsame loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta waxaa Kayse Cabdi Yuusuf loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda amniga iyo DDR-ta waxaa Yuusuf Maxamed Wacays Dheeda loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda waxaa Maxamuud Sheekh Ciid Muuse loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda maaliyadda waxaa Faarax Maxamuud Aw Cismaan loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah waxaa Cabdisalaan Cali Faarax Bilgays loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa Axmed Sheekh Faarax Maxamed loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda caafimaadka waxaa Maxamed Siciid Xasan loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxaa Siciid Maxamed Warsame Awaare loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda duulista hawada iyo garoomada waxaa Cabdinaasir Aadan Axmed loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda xanaanada xoolaha waxaa Siciid Maxamed Raagi loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxaa Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha waxaa Cabdiqaadir Jaamac Cali Afrax loo magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka waxaa Cabdifataax Maxamed Cabdinuur loo magacaabay wasiir dawlaha madaxtooyada dawladda Puntland golihii wasiirada ee caawa magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani intaas ayay ku egyihiin aad iyo aad ma mahadsantiin